gabdhuhu waa noolaha keliya ee si fudud wax u jeclaada. waxaad doonto lumi, balse gabadha si dhabta kuu jecel iska ilaali inaad lumiso qalbigeeda. haweenku waa sida shini oo kale oo malab kuu keenta balse ku qaniinaysa. gabadhu waxa ay dunida ka dalbataa waa nin haddii ay hesho wax kale uma baahna. gabadhu mar haddii ay kuu niyeysato inaad xaajigeedu tahay, waxay ka dhigan tahay inay kuu dooratay inaad tahay ruux mas'uuliyaddeeda qaadi kara. haddaba ha ugu beddelin niyadjab ee rumeeriyadeeda. si kastaba ha ahaatee, xanuunka ugu weyn ee dumarka haysta waa ragga, ragguna xanuunka ugu weyn ee haysta waa dumarka. haddaba dabadoodu waa guurka. haweenka iyo wargeysyada waa kuwa siman, waayo labaduba waxa ay baahiyaan war. haweentu wanaagsan waa buug xiran aanu akhrin karin ilaa iyo ninkii horay u xushay mooye. haddii aad doonayso inaad waasho haween, waxa aad ka yeeshaa maalinta oo idin muraayad la'aan. jacaylku waa ruwaayad haweentu ay wado, ninkuna uu maalgeliyo. waddada keliya ay haweentu kugu dhegaysan karto waxa weeye adigoo ugu sheekeeya dumar kale